كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دمانتين وحاتهين راعي waxa la yiraahdaa qofka qowsaarka xoolaha raaca macnaha idinku waxa tihiin kuwa wax la raaciyay wa mas'uulun an ra'iyati qof walbana waxa la weydiin doona wixii la raaciyay qof walbana waa la weydiin doona wixii la raaciyay markaasuu nabiga kaleey salaatu salaam sii sheego wuxuu oranayay والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته نينك رجع waxa la raaciyay gurigiisa waana la weydiin doona lagu la xisaabtami doona wixii Ilaahay uu raaciyay subhanahu wa ta'ala والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها guriga ninkeeda la raaciyay Ilaahayna waa weydiin doona subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha inaga adduunkeena ku rafaadnay aakhirana su'aal baa inoo dheer adduunkeena rafaad nooma yara gabalku wuxuu ku dhacayaa adoon ogsoonayn waagu wuxuu bariyay adoon hurdo ka dharkin hantidii ka dhimatay waqtigii ka dhimay cimrigaagii waa sii socdaa ilaahayna su'aal baa ku subhanahu wa ta'ala xaqiisa ku dheer laakiin haddaynu mas'uuliyadda qaybsanno haddaynu samaysanno xigmo u dhaqaaqno oo aynu xigmo la nimaanno oo aad adiga iyo xaaskaagii isfahamtaan waa wasiirkaagii waa gacanyarahaagii waa garabkaagii waa siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala aabbaheenii aadamaha uga abuuray xawo oo sidaasoo kale tihiin labadiinna inaad isfahamtaan baa caafimaadku ku jira carruurtan caafimaadkooda ah inaynu isfahamno oo aynu gacmaha isqabsanno ayaa wanaagoo dhan ku jira laakiin marka ay hooyadiina gooni u cabursan tahay odaygiina uu gooni u caburo qof walba mar buu furka sii daynayaa sii dayntiina waxay noqonaysaa in labadii qof ay kala tagaan qoysaska Soomaaliyeed ugu badan dhibaataduna waa fudaydka noocaas oo kale ah waa kala taga weeyaan misaal yar baan idin siinayaa wadanka aan ka imid waa wadanka ugu badan inta aan garanaya dhalinyarada ay ku dhamaadeen Soomaalida iyaga islaaya inta badan waxay ku dhacdana wax kala ma taqriiban dhowr iyo 40kii ugu horeeyay masaajidkayga lagu dhaqay waa u dhabagalay waan fiiriyay boqolkiiba 90 aabaha iyo hooyada ma wada nooleen carruurta waxa igu ayaan daraa marka aan la kulmay habeenada kamid ah mid dhalinyaro 24 ku jira la ii keenay oo meyd ah fridge-ka inaan u furo meydka waxa wada nin soo qaaday isbitaalka ka soo qaaday marka isaga uu soo qaado mas'uuliyadiisu ku soo qaadaya cidda meydka iskale ee wakiilka ka ah ee mas'uulka ka ah ama aabbo iyo hooyo waxay ahaadaan ama walaalo iyo ehel iyo qaraabo waa inay u saxiixaan inay meydka kala wareegaan si fridge-ka masaajidka loo geliyo masaajidkii markii la keenay ayuu wuxuu yidhi yaa meydkan ugu xiga aabbihii baan u tilmaannay aabbihii baa markaa la yidhi waa inaad buuxisaa waraaqahan aadna saxiixdaa inaad meydkii qaadatay oo adiga aad dhigatay masaajidka waa la buuxbuuxiyey qayb isagaa iska leh qaybna meydka weeyaan magaciisii iyo wixii oo dhan iyo kulli iyo adreeskiisii baa ku yaalla wuu saxiixay aabbihii meydka magaciisii waa wiilkiisii isaga uu dhalay 24 sano jira 23 ilaa 24 way markaa ayuu gelayaa wuu qoray wixii oo dhan adreeskii meydka ugu dambaysay saxiix baa qor baa lagu yidhi odayga waxaan arkay waxbaan qorayn maxaa kugu dhacay baan ku yidhi wuxuu igu yidhi ma garanayo maxaadan garanaynin ilmahaygana adreeskiisa ma garanayo waan garan kari waayay ma naxdin baa haysa ugu naxay miya odayga say wax ka noqotay xasan ku maxaa dhacay seedan u garanaynin adreeskaaga soo kan maaha ku qor isagana wuxuu yiri maya 10 sano u dambeeyay maana wada nooleyn aniga 10 sano u dambeeyay maana wada nooleyn naxdintii cunuga yar ee dhintay waliba ilaahay baa ogaa siduu akaa subxaanahu wa tacaala tinta ku baxday carruurtan suuqa galay ah ma ilmahan yar baan ka naxaa ee silaca u dhintay mise odaygan baan ka naxaa aan 10 sano war u haynin ilmihiisa maxaa keenay islaantii oo cabursan inay saaka sidii u kacday weeyaan gabalka u dhacay habeenbarkii way seexanaysaa waaga u bariyaya haddana meeshii bay ka bilaabaysaa carruurtii bay la ordaysaa iskuul bay geenaysaa way ka soo celinaysaa miskiin way rafaadsan isagii waa laga yaabaa inuu shaqeeyo ama waa laga yaabaa inuu meelaha fadhiisto
fadhi ku dirir ah labadoodii oo xayraanaba hadhow iska hor imanaya way dagaalamayaan ma yaqaanaan war waxa inagu dhex dhimanaya carruurtan weeyaan ficlanna labadoodii way dirireen qof walba dana gooniyuu samaystay ninkiina reer kaluu yeeshay gabadhiina iyaduna dhaqaaqday carruurtii bay la dhaqaaqday dhowr iyo 10 sano wiilkiisaas geeridiisaasaa ugu horraysay geerida wiilkiisaasaa ugu horraysay waa ka dhab weeyaanoo saacadda uu leeyahay ma garanayo meeluu degan yahay cunug yaraa hadduu waayo waa nin rag ah xilliga ay hooyo wadi karaysaa waa sannado go'an wey hadduu 10 sano soo gaaro hooyana ma dhegaysanaya wiilka wuxuu isku dayayaa inuu raganimadiisa muujiyo bannaanka aado waa laga ilbaxayaa hooyada waa laga weynaanayaa laakiin hooyooyinkeennu inay ogaadaan baa wanaagsanayd xilligaas way xilligu aabbaha u baahan yahay inuunan waxba u tarin odaygan oo fadhi ku dirirkiisa iska aado soo noqdo oy ogaadaan inay aabba leeyihiin baa u dhaanta intay dhihi lahayd warbax iga taga aabbihii inuu ku sabro carruurtiisa oo dul fadhiyo iyaga inan waxaad u noolayd xoolahaagii iyo hantidaadii iyo wuxoo dhanba waa iyaga intaad ka dhaqaaqi lahayd maalin cad waxaa laguu qaataa inaad iyaga ku sabarto waxaa kuu bannaan marka muxuu yahay xaaladdaasoo kale waa xaalad xaraj ah xaaskaagii adigii baa isku dhacay carruurtaadii baa gacantaadii ka sii baxaysa maxaa samayn kartaa qofba meel bay kaga taallaa laakiin xalka ugu weyn ee uguna wanaagsan uguna muhiimsan haddii kuu hagaagsan iyo haddii kaleba lagaa doonayo waa inaad ilaahay barido subxaana wa tacaala nebiyullaahi ibraahiim isagoo carruurtiisu ay yaryar yihiin yuu baryada ilaahay bilaabay ilaahayow anigii carruurtayda naga fogee an nacbud alasnaam inaan asnaamtan caabudno oon gaal noqonno ilaahu naga fogee rabbi raxmaano ilaahu muwaxidiin naga yeel ilaahu anigii carruurtayda ilaahu anigii carruurtayda wuu ducaynaya carruurtaada weli intaad meel fadhiisatay si khaalisa ilaahay ma ugu barida habeen markii intaad soo kacda ilaahay ma barida gacmaha kor maugu taagataa carruurtaada habeenkii intaad soo kacdo xaaskaaga ma u ducaysaa gabadhu intay soo kacda ilaahay ma u baridaa ninkeeda ficlan qoysaska soomaaliyeed hadday sameeyaanna waa yartaa inta samaysa waa fara ku tiris inta samaysa aad bay u yar yihiin aad iyo aad bay u yar yihiin waxaa ogaataa adigu waxaadan xallin karaynin ilaahay baa xallin kara jalla wacalaa ilaahay baad addoon u tahay kan aad baryaysana waa addoon ilaahay weye subxaana wa tacaala ilaahayna waa muqallib alquluub quluubtan o dhan isagaa gedgediyey jalla wacalaa qisaan idiin sheegayaa hooyo xagga nagula nool baa ilmaheedii suuqa galay si kastaa la yeelay waa soo fadhiisan kari waaye habeen oo dhan waa dhaxayaa iskuul ma jiro war kalena salaad iyo warkeedaba daa maalintii dambe hooyadii waxaanu ku nidhi ma doonaysaa cunugan xalkiisa inaad heshaa waa sahlanta haye adigu bal habeenkii intaad soo kacdo saqda dhexe wakhti dambe salaadda subax horteed gacmaha kor u taago ilaahay bari ilaahay u oy carraba kaasi muddo sidaa ku wad sidii bay yeeshay habeen barkii bay soo kacdaa ثuluث alleyl alakhiir ilaahay bay baridaa salaad bay tukataa sujuudda ugu ducaysaa ilaahay bay u baridaa way oysaa ilaahay bay u oysaa habeenkii dambe iyadaa ka sheekaynaysa habeenkii dambe 3dii habeennimo iyadoo la marayo iyo albaabkii uu igu soo gargaraaci tiray waayo waa hebel waa cunugeedii waxaad u malayna xilligaa inuu soo hoydo waa 3dii habeennimo hooyo haa hooyadii buu isku duubay oo ooyey oo ilmeeyey oo hooyo waa khaldanaa hooyo kanaan ahaa hooyo keer baan ahaa dharkaygaan daahirsanaya hadda waa qabaysanayaa waa tukanayaa inaan khaldanaa baan is ogaaday way rumaysan kari weyde war ma adigiiba haa ma boolis baa loo diray maya ma xoog baa loo sheegtay maya laakiin rabbi subxaana wa tacaala muqallib alquluub ah bay u bariday jalla wacala hooyada baryadeedana waa mustajaab waalidoo dhan dacwadiisa waa mustajaab hooyadu kuma sii jirto dacwadeedu waa mustajaaba ilahi waa ajiibaya jalla wacala
ilaahay subxaanahu wa tacaala meel aan la ogayn iyo xilli aan la filanaynin isagoo ordayuu keenay qalbigiisa ilaahay soo hanuuniyey waxay noqotay inuu qirto inuu khaldanaa haddana uu ilaahay isu dhiibay subxaanahu wa tacaala salaad inuu diyaar u yahay cibaado ilaahay inuu diyaar u yahay hooyo iyo cafi haddaynu ubadkeenna ilaahay u baryano subxaana wa tacaala saasoo kale ilahay noogu islaaxinaya hadduu islaaxsan yahayna ilaahay waa kuugu sii wadaya subxaana wa tacaala macnaheedu maaha markuu waddadii ka khaldamo keliya in ilaahay loo baryo laakiin xilli walba inuu ilaahay subxaana wa tacaala u baahan yahay ogow ilaahay durriye saalax inuu kaaga yeelo maxaa yeeley idaa maata ibni aadam inqataca camalu ubadkan waxaynu u dhalnay waa inaynu ku intifaacno nolosheenna iyo geeradeennaba haddaynu nool nahayna xooggooda inaynu wax ka helno haddaynu dhimannana inay noo soo duceeyaan maxaa yeele nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu qofka bini aadamka dhinta camalkiisa waa xirmaa oo waa go'aa ilaa 3 qof mooyaane waxaa ka mid ahaa qofka ka tegey waladun saalixun yadcuu lah ilaahay ma u barida inay walad saalix kuu noqdaan marka ilaahay inuu muslixiin ka dhigo ilaahay inuu hanuuniyo subxaana wa tacaala kuwo dadka hanuuniya inuu ilaahay kaaga dhigo ilaahay ma ka bariday subxaana wa tacaala waa maya ta kale waxaa laga yaabaa labadii qofay isqabay inay noqdaan middi middi ku taag way dhacdaa qoys badan baannu aragnay ma aha oo keliya hadduu qofku diinta ilaahay subxaana wa tacaala yaqaanno in gurigiis u dhaqan yahay hamoodin maxaa yeele ambiyada ilaahay mihaal u qaado weli ilaahay ma u bariday subxaana wa tacaala gabadhu ninkeedan ay kari la'dahay ama khayr iyo wanaag oo dhan lagu kari la'yahay masaajidkii lagu kari la'yahay ilaahay ma u bariday subxaana wa tacaala mihaal baan idin siinayaa waxaa xagga igula nool reerku masaajidkay ku xihan yihiin carruurta iyo xaaskuba laakiin ninku wuxuu ahaa qolooyinkan iibiye qaadka kanada sidaad ogtihiin qaad lama gen karo waa mamnuuc laakiin haddana soomaali baynu naho laaluush iyo balaaye iyo waxaynu ka daba meeraysannaa gaaladii baa la bare isagaaba soo dejiyaba galabtii 5 galabnimoa hurdada ka kacaa isagaa iiga sheekaynaya wuxuu yidhi markaasaa aan tagaa aeroboorka waan ka soo qaadaa wixii yaalla suuqaan u kala diraa galabtii 5tii galabnimo ilaa 10kii habeennimo waxaa laga yaabaa $90,000 inay gacantayda soo gasho buu yidhi intaa wixii ka dambeeya qaadkaygaan cunaa waaga markuu baryo haddana waan seexdaa 5ta galabnimo aan soo kacaa noloshiisu wataa laakiin gabadhan uu qabaa gabar mu'minada leh carruurta iyo booskiisii iyo booskeediiba iyadaa qabata ilaahay bay baridaa subxaana wa tacaala ilaahay bay baridaa waxaa dhacday maalintii dambe inuu isagii naf ahaantiisii isagaa iiga sheekaynayay anoo fadhiyaan fakiray buu yidhi 90,000 oo hortayda taallay baan sidaa gacanta ku dhahay 90,000 4 saacadood baan ku helay gudaheeda ma xalaal baa mise waa xaraam xaaraam weeyaan xalaal iima ah maxaa iigu wacan ilaahay baan dhaar ugu maray subxaana wa tacaala inaan maalin dambe ku noqonin masaajidkuu soo galay soon bay ahayd wuu ii yimid wuxuu igu yidhi sheekh ilaahay baan u toobad keenay xaggeen ka bilaabaa tagsiiluu ahaa tagsi buu lahaa isagu wuu ku shaqaysanayey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku anfacay dadkii gaalada soo raacayey intaasoo qof baa ilaahay ku soo hanuuniyey subxaana wa tacaala dariiqaa uu hayey iyo dariiqan hadda uu hayo ee ah in ilaahay subxaana wa tacaala sabab ooga dhigo boqolaal qof inuu isaga sabab ooga dhigo ay ku soo islaamaan waxaa ka dambeeyey gabadha xaaskiisa ee ilaahay u barinaysay subxaana wa tacaala dhanka kale waa la mid weeyaan iyana waannu aragnay rag badanoo sidaasoo kale ah ku sabrayo ku dulqaadanayay guriga intay yimaadaan rag aan garanayo guriga markay yimaadaan iyagaa raashinka karinaya iyagaa dhaqaya iyagaa wax walba samaynaya xaaska meeshaas iska jiiftaa cunnadii uu kariyey bay cunaysaa war maxaa dhacay maya iska dhaaf u dhahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo hanuuniya markii dambe war ilaahay aynu barinno subxaana wa tacaala guryahan gubanaya ilaahay baa debdemis u ah subxaana wa tacaala haddaynu ilaahay barinno ilaahay waa inoo bakhtiinaya allana subxaana wa tacaala qur'aankiisu inoogu sheegay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعان كإبري بريدي سوان أجيبيا بريدي سوان أجيبيا إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكن إنك إلهي مبرنا سبحانه وتعالى ماي وبدكاك إلهي مبردا حبين بركي صوكع قعمها كور وقلتاك يا ربي يا ربي إلهي أوي جل وعلا هل من سائل فأعطيه قف وحي ويدي سنة يؤنسي مجرى أبو إلهي ليه ها ربي وأنيقا قعمها كوتاكتي ربي ساعدها هبين بركان صوكعي إلهو ضنبان كالي حاجو إلهو عرورت يدي إصلاح إلهو هبل إصلاح إلهو هبل سيدن إيال إلهي وكو يلي جل وعلا والله وإلهي وكو يلي لما نصاحبا هاي حافظة يا عرورتي القرآن كولي markaasuu wuxuu igu yidhi wiilkaygan wiiluu dhalay weeyaanoo anigu sami iga dhigay buu iga sheekaynaya wuxuu yidhi carruurta marka aan u dhigo 2 sadar isaga haddaan siiyo xitaa 2daas sar kama baxayo maanta oo dhan 1 sadar baan ooga dhigaa kama baxayuu igu yidhi markaasaan ku dhahay ilaahay u barinayo waalid baa tahaye ilaahay ducadaada waa ajiibayaa habeenkii markaas soo kacday ilaahay u bari fahmadii xaggee laga fura ilaahan baa furi kara jalla wacala daawo la siinayana male cid kaloo bedeli kartana male maalin danbuu iiga sheekaynaya wuxuu yidhi sheekhow hadalkaad igu lahayd ma xasuusataa haa dhowr habeen isbuucah dhowr isbuuc baan ilaahay baryey ilaahu fahmada u fur wiilkaa ilaahu fahmada u fur hadda wuxuu igu yidhi ma aragtaa haa haddaan safxad siiyo wuu baxayaa carruurta oon soo xifdaynin wuu ii imanayaa wuu ka baxay haddana wuu noqonayaa safxad kalaan siinayaa iyagoona dhammaynin wuu imanayaa wuu dhammeeyey yaa u furay hal sadar baa lagu kari la'ah hal sadar baa lagu kari la'ah yaa u furay fahmadii ilaahay loo baryi weye subxaana wa tacaala waalid mar haddaad tahay ilahay ducadaada waa aqbalaya jalla wacala innaga dhexdeedana aan ilaahay isu barina reerihii gudahooda ninku ha u duceeye xaaskiisa xaaskuna ha u ducaysa ninkeeda ilaahay ha loo baryo labadiinnana ilaahay u barya awlaaddiinna qoys haddaynu doonayno wanaagsan isu caafimaad qaba wanaag iyo khayr ku wada nool ilaahay inuu isu barinno ilaahayna waa inooga dhabaynaya subxaana wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci ka ibarya baryadiisa waa ajiibayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ibarya waa idin ajiibayaa laakiin nolosha aynu ku noolnahay nolol ma ah beri dhow waxaad arki doontaan odayaal soomaaliyeed iyo islaam ah laakiin carruuro gaal ah badan dhalay ma jeceshahay firkaaga iyo faracaaga inay gaala noqdaan waddanka norway baa la iiga sheekaynaya nin baa waayo hore weeyaan wuu tegey wuxuu baranaya luqaddooda markaasuu wuxuu raadiyey kitaab qur'aan ah oo fartan finlandeeska ku qoran wuu waayey wuu baxay wuxuu damcay inuu isagu qoro maalinba waxbuu qoraa luqaddii baa ka hor timaadda wuxuu la isticmaalaa librarigu tagaa luqaddii finishka ama finlandeeska dadka yaqaanuu weyddiiyaa gaaladii markaasaa lagu yidhi adiga luqaddan aadna weyddiinaysa maxay tahay wuxuu yidhi kitaabka qur-aankaan raadiyey waan waayey oo luqaddiinna ku qoran marka inaan mid qoro ayaan hadda ku fakarayay sannadaha soo socda marka kaasaan isu diyaarinaya waa la qoray baa lagu yidhi librariga xagga hoosaa loo daadegay mid duug ah baa laga soo saaray waa la jajafay waa loo dhiibey aad buu ola yaabay wuxuu ku yidhi marka haddaba hadday sidan tahay kan inaan badiyaan doonayaa marka waxaa lagu yidhi maya copyrightка waxaa iska leh familkii ninkan oo miyay joogaan haa oo wa'ayo daatadii baa dib loo raacay waxaa la yidhi gabaruu awoowo u yahay baa hadda joogta magaaladaasay joogtaa adreeskaasay leedahay raadse iyada idan ka soo qaado hadday kuu idanto waa badin karaysaa markaa qisadan fiiriya hadda kuwa dhaqaajiyey buu yidhi gurigii baan tegey adreeskii waa ku gargaraacay haa waa la iga furay islaam baa iga furtay heblaaye miyaa tahay adigu hebel ma garanaysaa baan ku idhi buu yidhi haa awowgey waya igu tiri okey adigu heblaaye miyaa tahay haa marka waxaan doonayaan kuugu imid buugga kitaabka qur'aanka oo awowgaa uu qoray yaan doonayaa inaan fidiyo oo aan sii badiyo
waxaana la weydiiyey copyrightka idinkaa xaqa u leh marka arrintaasaan u socday wuxuu igu tuni yidhi hadalka haa awowgay nin wuxuu ahaa weyn nin diinta yaqaanu ahaa kanuu ahaa laakiin wuxuu qoray diinta islaamka wey annagu diintii ma haysanna hadda waa awow weeyaan aabbaheed buu dhalay ninka kitaabkaa qoray aabbaheed buu dhalay marka annaga hadda diintii ma haysanne waxaad qoraysa adeeg kuu taallaa isku diinba ma nihin waa meeqaa ka soo wareegay waa hal generation weeyaan macnaa kan aad dhashay baa sii dhalay wey marka ilaahay subxaana wa tacala wax laga magangeliyo weydiista weeyaan in ubadkii adiga kaa farcamay ay kugu abtirsadaan gaalo inay kugu abtirsato waa wax aad looga dhinta weeyaan ilahay baan ka magangeliyo weydiisanaynaa jalla wacala نسأل الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم إنه ريرها نو إصلاحيه إلهي ريرها نو إصلاحيه وبدك الله نو إصلاحيه إلهي سبحانه وتعالى إنك ما أبوره فركينية فرع النبا وحقالا إلهي بيني إلهي إنك ما أبوره جل وعلا عرفتنا أن إلهي كوا موحدين الله كيالو كوا هادين مهدين الله كيالو مصلحين كوا الله كيالو